وبقى الله كوريدا وحا قالودي oo saacadaha aan haatan idin la hadlayo diinta islaamka banaanka ka joogta fartuun balbalaarka haweenaydan gafuurka weyn ayaa lacag darteed waxay uga baxday diinteeda islaamka una dhaafsatay shilimaad kooban subxaanallah wal ciyaadu billah culimadu waxa ay sheegeen in qofka muslim ahaan jiray ama muslimnimo ku dhashay oo og in diinta islaamku ay tahay mid jirta hadduu diinta ku gafo ama isaga baxo uu ka daran yahay gaalada sidoo kalena markaas ay adag tahay si uu ku soo muslimo haweenaydan qanjaha weyn ee fartuun balbalaarka muuqaalkeeda ayaa gangilay baraha internetka isagoo si weyn u qabsaday Soomaali fara badanna ay ka falceliyeen waxaan halkaan idin kula wadaagayaa muuqaalka oo dhameystiran dhamaantiin waxaan ka codsanayaa qof kasta oo muslim ah inuu ku dilo fartuun balbalaarka goobtii uu ku arko muuqaalkana si share gareeyo si uu gaaro muslimiin fara badan haddaba ila daawada muuqaalka caawa gaaloobi lahay haddii la gaaloobi karo intaas $1 lagu siin lahay gaalnimada caawa ana waa gaaloobi lahay diintan waa ka bixi lahay والله بالله دقيقة وقالوا بالله عاو انت سكون $1 نولوشي اكو راح يسنكر وكو قالوا بالله عاو مسلمين مدن واقو بحلها والله جرير قبيل معها واحد جرير اكو شاكتا قلده خلين انا قالوا قبيل كلا شاكتا مضع عصب حسدا عابو عصب راسدا هاي عصب راسدا دانتي او خصبيسو والله هدي عاو لا قالوا بالله nolosheeda inta ka dhiman imanaysid leedii lahaa wax adduunka u jecesha waa helaysaa wallahi nusax muslim ma ahaan lahayd waa ka bixi lahaa laakiin ugu dambeyn fartuun balbalaarka waxaan leenahay in adeer diinta foolxumadaada ayaad uga baxday wax dhib ah uma aadan geysan ee isku badnow